بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ومركلة برنامج كيني تربية عرورتا. maanta barnaamijkeena waxaan ku soo qaadanaynaa arrimo la xiriira su'aalo fara badan oo waalidkuna soo weydiiyeen. marka hore waxaan rabaa intaanan su'aalahaas jawaabtooda u gelin iyo waxa ay yihiin inaan ka warbixiyo arrintan tarbiyadda caruurta oo aan dhawaan bilownay ama anigu aan bilaabay horseedka u ahaa sababka ugu weyn oo aan u asaasay hadday noqon lahayd bogga Facebook iyo hadday noqon lahayd kanaalka oo YouTube-ka ah oo tarbiyadda caruurta labadaba. horta ujeedkayga ugu weyn wuxuu ahaa arrin Soomaalidu dhammaantood og tahay dhamaanteen og tahay oo ah qaabka ama habdhaqanka aynu ilmaha u korino haddaynu Soomaali nahay inuu khaldan yahay keenni miyiga oo horeetana inaynu ka tagnay midka hadda magaalooyinka ama qurbaha aynu la joognana in uu yahay mid ay ina la gashay oo aan haba yaraatee wax cilmi ah oo ama diin ah ku dhisan uusan ahayn uu iska yahay qob iyo qac taa waa isku wada waafaqsanahay. ujeedkayga marka ugu weyn wuxuu ahaa hal qof horta wax ma bedeli karo waxna ma qaban karo oo ummad dhan oo guri walba dhibaato ka jirto sida hal mar loo wada hagaajiyo way adag tahay. su'aalaha dadka waalidka ay badanaa soo weydiiyaan waxa kamid ah ilmo jaakoray oo dhibaatada qafal xumada ah ku soo barbaaray oo iskuulkii diidan dugsi quraankii diidan waxba aan maqlayn 8 sano jiray 9 jiray 10 jiray iyo ka weynba maxaa loo qaban karaa. dadka Soomaalida marka maadaama aqoonteenu iska yar tahay qaarkood waxay u haystaanba kelimad aad tiraahdo ama hal erayo aad wixii ugu jawaabto inuu wixii oo dhan xalinaayo sida xabad kiniiniyo antidolooraha qof madax xanuunaya oo oo kaleeto in wixii ku xalismayso yani dhibaato 10 sano soo jirtay oo guriga ka soo jirtay iyo ilmaha qaab loola dhaqmay in hal mar lagu bedelaa wax sahlan ma aha. aniga marka asaaska boggan ama arrinkan tarbiyadda caruurta horta ugu weyn oo aan kala ahaa runtii haddana aad moodo in guulihiisu ay muuqdaan wuxuu yahay in ummadda Soomaaliyeed marka horeeto ay baraarugto tanbiih baraarug in bal horta hurdada laga kaco dadku inay fahmaan in qaabka aynu wax u korino uu khaldan yahay in wax ina ka siihiin in nidaamkan aan lagu socon karin in caruurta aan tarbiyadaynayno oo barbaarinayno oo bulshada Soomaaliyeed aan ku soo darayno ay wax si ka yihiin oo wax khaldan yihiin taa horta bal inuu waalidku garto oo yiraahdo dilitaana kan faraha badan oo ilmaha guriga aan ku hayo waa dhibaato ilmahan aan maqlayn waa dhibaato ciyaaratan faraha badan iyo qaylada iyo buuqa guriga ka jira waa dhibaato ilmihii aqoontii iskuuladoodii ay hoos u sii dhacayso waa dhibaato sida hadda iskuuladii xamar dawladda federaalka ka dhacday Soomaaliya imtixaamadii lagu wada daatay oo tiro aan caadi ahayn 8500 miya la sheegaya ay imtixaamadii ku dhaceen waxyaabahaas oo dhan waa waxyaabo tahluukaad ah oo jira oo bulshada Soomaaliyeed ku soo socda muddo laga digaayay oo dad badan oo oo waxaan aqoon u leeyahay ay ku baraarugsanaayeen. aniga marka ujeedkaygu wuxuu ahaa dadku inuu baraarugo qofku waalidku marka ay baraarugaan oo gartaan sida hadda waalidiin fara badan ay sameeyeen sida groupka WhatsApp-ka oo ilaa 257 qof ku jirto waalid badan ay isla qireen waxa ay tahay inay baraarugeen dilitaankii ilmaha joojiyeen habdhaqankoodii korriimada wax ka bedeleen waalid badan ay yiraahdeen ilmaha xataa inay warkiisa maana dhageysan jirin hadda waa u xasilaa sheekadiisaan dhageysanaa wuxuu ku hadlaayo sidii qof weyn baan u ixtiraamnaa dilitaankii waa joojinay. aniga horta ujeedkayga ugu weyn waa waana alxamdulillah wax ilaah loogu mahadiyo in dadku baraarugay waa shay weyn haddii la baraarugo in dhibaato jirto cilada waa la heli karaa. arrimaha marka maanta aan doonayo inaan muuqaalkan yar oo kooban aan kaga jawaabo inkastoo ila dheeraan doono waxa ka ah ilmo 10 sano jiray 8 sano jiray waxba aan maqlayn rabin inuu wax barto gurigii dagaalamaya caruurtii kale dilaya ma garanaysaa garaadkiisa iyo garashadiisu yar yahay waalidku waxayna soo weydiiyeen maadaama anigu khaladaadkiisa anigu aan lahaa waalidkani waxay ku fiicnayeen waa waalid qirtay dhibaatada kale oo ina haysataa waxay tahay ilmuhu khalad ma laha mas'uuliyadana ma laha oo waa ilmuhu innagaana dhalay waa caruurteennii qaloocan beenatan wax maqal la'aantan dhibaatadan kulli waa waxaan inagu sababkeeda leenahay. qofka waalidka horta waa inuu qirto oo yiraahdo war anigu tarbiyadda aqoon uma lahayn waxaan wax ku wadayna sidii aniga laygu soo waday bay ahayd dilitaankii iyo qobiga qacdi waa inaan ka waantoobo nidaam ka duwan baa jira
barnaamij waxaa jira tarbiyada oo islaam ah oo caruurta wax loo baro oo diinta loo baro oo akhlaaqiyaadka loo baro oo qiyamka iyo wanaagga iyo runsheega iyo daacadnimada loogu wareejiyo oo guriga loo xasiliyo taa markuu khaladka waalidku qorto oo ilmaha eeda ka qaado baa markaas maaragtay xal la heli karaa waalidkaas marka ilmaha 10 sano jiray haysta waxay qirteen in ay iyagu khalad kale yihiin oo qaloocan ilmuhu ay iyagu u keeneen oo u sabab yihiin halka marka wuxuu yahay ilmahani horta inuu wax dhibo uma dhalan inuu dhibaato sameeyana uma dhalan waana waxaan inagu ku abuuray dhibaatada uu samaynayo iyo qalqaalinimada iyo wax maqal la'aantuna waa cabasho uu caawimaad ina weydiisanayo maskaxiyan baa wax ka sii yihiin wuxuu leeyahay waa waray wax la qabto ilmuhu markuu waxadayo oo wax baabiinayo oo caruurta kale dilayo oo isaga dhanba uu buuq iyo qaylo iyo shida ku jiro ujeedkiisu waxa weeye wax la qabto guduhu ka gubanaya gudihiisa gubanaya oo waxa ka buuxa dhibaatooyin fara badan oo fasiri karin oo 10 sano uu korayay soo maray waxyaabaha marka aan dadka kula taliyo badanaa waxa ka mid ah qoysku haddii uu habdhaqan ku riimo oo khaldan lahaa oo fawda ah oo meel u socdo iyo meel ka socdo midna aan la fahmayn oo guriga door la kala lahayn aabaha iyo hooyadu door kala lahayn oo caruurtu guriga door lahayn oo waqti la ciyaaraa uusan jirin ciyaarta xataa waxaynu u naqaanaa inay khalad ilmaha ku jira tahay ilmuhu ciyaar buu samaysan yahay shaqada kaliya oo boqolkiiba 99 qabto waa ciyaar wadanka adduunka ugu waxbarashada fiican waxa weeye Finland markii la weydiiyay oo la yiri si caruurtiina heerka ku gaarsiiseen waxay yiraahdeen caruurta waa la ciyaara qaabka kaliya wax ku baraa waa ciyaar bay waxay kale too yiraahdeen caruurta homework ma basiinaba guriga laylis ma loo qaataba oo si wax u bartaan waxana wax u baraa in waxa ay jecel yihiin ay bartaan sida iyagu ay jecel yihiin inaan u yeelno manhajka caruurta wax ka dajisa oo wax laga weydiiya caruurta shaqadoodu waa ciyaar ciyaarta horta waa in loo ogolaado ciyaarta haddii ilmaha loo diido ha u malaynin inuu quraanka ku aflaxayo ama dugsiga ka aflaxayo ciyaarta waa u baahan yahay jirkiisa u baahan waxbuu ku bartaa qaabka kaliya oo ilmuhu wax u bartaa waa ciyaarta in iyagu isla ciyaaraan in dadka waaweyn la ciyaaro in meel ay ku ciyaaraan loo sameeyo in guriga alaab ciyaar u taalo in waalidku la fariisto qaabka ay wax u bartaan waalidka marka ilmaha haysta 10 jiray 8 jiray aan wax maqlayn gurigana qaloocaas iyo dhibaatadaas ka soo jirtay talada koowaad aan u soo jeedinayaa waxay tahay saameynteedana aan arkay horta marka u horeeyo guriga waa in shir la qaban qaabiyo waa in shir la qabto 2 beri 3 beri koor waa in la iclaamiyo maalinta arbacada waa in la yiraahdo aabaha ama hooyadu iclaamiso reerku waqti qadaaho la qadaynayo la yiraahdo beri ma haysaadame ama beri oo jimcaha waqtigaas bacda casrka marka la soo kaco waxaa jira shir arrimaha qoyska lagaga hadlayo barnaamijka reerku ku socday oo dhan isbedel baa dhacay waynu shirayna hal isugu yimaado shirka haddii guriga 7 caruur joogto waa in 7 caruur soo fariistaan dhulka waa in la goglado la wada fariisto shirku marka nidaam buu leeyahay loo galo diinta islaamku waxay leedahay nidaam la yiraahdo mashruuc in la wada tashado waynaan isticmaalayne wax kasta diinteenu waa inoo dhigtay nabiga kaleey salaatu wasalaam xadiis saxiix ah wuxuu ku yiri wax dantiinu ku jirto ama khayridiin ku jiro oo aanan ummadayda u sheegin ma jirto wax shar ugu jiro aanan u sheegin ma jirto qiyaamaha wuu isbariyaa hatta tarbiyada caruurta wuu ka hadlay ahadiis badan buu kaga hadlay shirkan marka mashruurada ah ujeedkiisu wuxuu yahay marxaladii hore oo lagu jiray oo qobtii qaacda ahayd baa laga wareegayaa waxa loo wareegayaa marxalad la yiraahdo tarbiyatul awlaad fil islaam iyo dhaqankii Soomaalida ilmaha lagu koriyo ilmaha markii la soo wada fariisto shirka nidaam baa loo sameeyaa waa inuu nidaam leeyahay waxa nidaam lahayn ma shaqeeyaan waxa la sameeyaa shir gudoomiye aabaha marka hore loo dooran karaa hooyada loo dooran karaa marka horeeto waan soo wada caruurtuna markooda ay gali doonaan aabaha marka shirka ugu horeeya shir gudoomiye laga dhigto uu isagu iclaamiyo ama hooyada laga dhigo shir gudoomiye qofka furaaya wuxuu sameeyaa wuxuu leeyahay xeerarka shirka waxa kamid ah qof aan hadalka loo fasixin inuusan hadlin shir gudoomiye oo fasixin qofku markuu hadlayo inuu gacanta taago qofna inuusan qofka kale fikradiisa durin qof kastana inuu aragtidiisa ka hadlo qof kastana inuu xaq u leeyahay in la dhageysto culuum badan baa ku jirta oo ilmuhu ka baranayo kadib markaa shirka la sameeyo oo la iclaamiyo oo sida loo wada fariisto aabaha shirkii furaya uu hadlaya
hooyada iyo aabuhu labaduba iyaga iska daba hadlaya waxay leeyihiin qaabkii horeeto oo gurigan aynu ugu noolayn jadwalkiisii sharcigiisii qaabkii koriimada absolutely maanta laga bilaabo 100% waanu bedelay maxaanu u bedelay dilitaan dambe horta ma jiro hooyo iyo aabe mar dambeeta idin dili doona waa habeenkii xalay ahaayo tagitaa meel ku xirto okay qofkii khalad sameeya waa la ganaaxi doona meesha mucayinka ah baa lagu ganaaxi doona uu istaagi doona ilmo waliba intuu daadiisa jiro arrinka labaad saddexaad wuxuu yahay waxaynu ka wada hadlaynaa shirkan yeelanaynaa toddobaad kasta waa khasab reerku isbuuci mar inuu shiro wax kasta laga shiri karaa u yaala waxa laga wada hadlayaa guriga cuntada la cunaayo 7 beri oo soo socota maalinta bariis la cunaayo maalinta baasta la cunaayo maalinta hilib la cunaayo caanaha shaqada sida loo kala qaadanayo caruurta xoogaa waaweyn sida shaqada waalidka hooyada u caawinayaan uga qayb galayaan qalin iyo warqad buu soo qaadanaya aabuhu ilmaha ugu weyn hadii caruur waaweyn joogto baa qoraya ama isaga hadlayo hooyada qoraysa qodobada lagu heshiiyo waa la kala qoranaya ilmaha 4 sano jiray 3 sano jiray oo hadli kara shirka waxa la leeyahay eesh ra'yak adiguna maxaa qabtaa waa inuu hadlo oo fursad la siiyo hadlo marka hore ilmuhu xoogaa shirka nidaamkiisa ma fahmayaan waa la isku qosqoslaya waa wax kala loo arkaya odagii habartii maxaas daaray baa la leeyahay see wuxuu jiraan waataynu meeshan iska noolayno fawdada ahayd ma jirtaa la leeyahay fawda waa dhamaatay barnaamijka marka waxa laga wada hadlayaa 7 beri oo soo socota waalidka hooyada iyo aabuhu horta kow waxay qiranayaan qaabkii wuxuu qarinayeen inuu khalad ahaa caruurta waxay leeyihiin raali naga ahaada dilitaanku xal ma ah waalidku bedeli weyne qayla xal ma aha canaan xaq ma aha xal ma aha hadda kadib waa la isdhegaysanayaa qofkii khalad gala aabaha iyo hooyadu mar bay u digayaan mar labaadka hadduu khaladkii ku noqdo waa la ganaaxaya hooyada iyo aabuhu xariga meel bay u wada jiidayaan in tarbiyada ilmaha aabuhu wuxuu yiraahdo hooyadu ka daba tagi mayso waa siduu u yiri ma aha in la isku qabqabsado koriimada ilmaha aabaha wax dhahaya hooyada wax kale tadahaysa ilmihi wuxuu ku qaadayaa confuse koriimada Soomaalida waxyaabaha dhibaatooyinka ugu daran oo inuu haysto waxa kamid ah malaha jiha loo raaco malaha مثلا ilmaha waqtiga la korinayo waxa kamid ah in la kala baro khaladka iyo saxda maxaa khalada maxaa saxa wixii khalada ilmaha in lagu qabsado wixii saxana in lagu dhiirigeliyo lagu booriyo abaalmarin lagu siiyo uu la yimaado abaalmarintu ma aha in nacnaciyo la siiyo habta waa ku jecelahayda kalgacalka amaanta taas ilmuhu ka jecel yahay oo ka fiican in abaalmarin ay jirto iyadana okay marka ay qirtaan khaladaadkoodii waxay leeyihiin dilitaan dama ma jiro guriga nidaamkaas uu ku dhaqmaya heshiisa kan inuu dhaganay 7 beri wixii la cuni lahaa waa la qortay shaqada sidii loo kala lahaa waa la qortay sida la isu maqli lahaa waa la qortay qof walba qofka kala khaladkiisu marka eegay qof waliba wuxuu ku dadaalayaa wixii isbuuca lagu heshiiyay inuu farankeeda ku dhaqaaqo waa reerka doonaya inay ka guuraan marxaladii xumayd oo u guuraan tarbiyad casri ah oo cusub oo diinta islaamka ku dhasan horta waa in shir la qaato ma aha in aabihii hooyadii ay barnaamij cusub reerka iska soo geliyaan caruurtii aan waxba la socon aan waxba ogeyn ilmihii wax maqlaanta lahaa waxa la leeyahay ilmihii aan wax maqli jirin waa inaan wax maqasho qofkii wax maqli waaye hal mar baa loo digayaa mar labaadka waa la ganaaxaya arrimaha cajiibka aan ka yaabay waxa kamid ah ilmuhu sharciga waxay ka jecel yihiin ma jirto iyo nidaamka guriga qaabka loo dhigo waalidku ku heshiiyo ilmaha hadii lagala shiro leeyahay kuraasta saasa loo dhigaya qof waliba kursigaas uu fariisanaya ilmo ogolaanaya ma jiro in ilmo kale khalad sameeyo boos khaldan fariisto adiga aabaha ama hooyada hadii kursi aad lagu heshiiyay inaad fariisato aadan fariisan xilliga qadada oo kursi kala fariisato kan uu ilmo wuxuu ku dhahayaa kursigaan ka kac waxay ka jecel yihiin ma jirto ilmuhu nidaamka nidaam darrada inaga ugu wacan marka waxa la rabaa in gurigii shirka nidaamka ah lagu heshiiyo waxaan jeclahay waxaan tijaabiyay waxaan shirkaasi inuu noqdo shir hirgala 7 beri oo kastana maalinta jimcaha ama khamiista oo kale la qabsado oo heshiis lagu yahay labada waalid heshiis ku yihiin caruurtu ogtahay waad arki doontaan caruurtu say u xiiseeyaan shirkii baa dhow maalin kor baa la sii iclaaminaya 7 maalmood hal maalin oo 15 daqiiqo ugu badnaan 20 daqiiqo ama 10 daqiiqo qoyska dhan uu shiro laga shiro toddobaadka wixii la qaban lahaa la qorto cidii khalad sameysay sidii loo ganaaxi lahaa laga wada hadlo shirka dhexdiisa lagu barto sida aragtida loo dhiibto sida loo kala fikir duwanaan karo sida qof waliba uu qoyska xubin muhiim u yahay oo saameyn u leeyahay lagu barto waa waxaan la arag oo la maqal wax la diidi kara ma maanta bilow maanta ka bilow isbuucan shirka waa in la qabsado
waa qoysaska haysta caruurta muddo ku soo nooleyd guri fowda ka jirto. tan kaleeto arrinka muhiimka waxay tahay tarbiyadu waa inay meel loo raaca leedahay. wixii khalada waa khalad laguma eegan karo ilmaha. waxyaabaha qaarkood oo aynu samayno khaladaadka aynu samayno waxa kamid ah مثلا ilmaynu khalad uga digaynaa. hooyada waxay leedahay juju waxa sariirta ku boodboodi bay maanta leedahay way ka xanaaqaysaa maanta way ka gubanaysaa waa sida moodkeeda ku xiran yahay. isla galabta casarkii bay waxay arkaysaa isagoo ku boodboodaya iyadoo armaajada wax kala baxaysa. la hadli mayso ma eegayso. ilmay wuu fiirinayaa iyadii ma iska maqan tahay wuxuu isleeyahay dee shalay khaldaneed bisaaka khaldaneed goortay kulahay laguma boodboodi karo waa loo golyahay boodboodkiisa buu cirka ku sii wadaya. وحسوسين يلمو إن خلت كلو قد يجي واوجيه مركب وحن كوضع تعطوا صار نص قاتي وحي خلط وخرط سنة المها اللي قلام ماي والله يرايا ولا قال حساب تماي ولا قال فريسنايا شركة مركب تدبل بريبة مرة لقبته ويحكوا في عين تضبط كوري هذا مركب شركة على قالوا سأل له شيء اسبوع عدم الشركة مركب يسوق لها مال انت خميس أما جمعها مال انت اللي هو شيء واحد رطبها النقطة وقت في عقدة كلية هاي تضبط كوحي خلط ماي أو نبى لو سوق عدنايا جناحي waa lagu soo qaadanaya kii la ganaaxay kii maxbuub qali waayay kii iskuulka googooyay kii dugsi quraanka ku casharkiisa ka soo bixi waayay kii diiday shaqada lagu qoray inuu qabto walka dhaqadiisa caawimaada adeega banaanka waxaas oo dhan waa in la kala qaybsado. waxaan meeshan family baa nool qoys bulshadii kamid ah oo raba inuu wanaagsanaado marka wixii oo dhan baa lagu soo qaadan wixii khalad ahaa baa la sixi. qofka kale wuxuu ku dadaalayaa inuu wanaajiyo. aabaha iyo hooyadu markaa waxay ku heshiinayaan ilmaha hadda 10 jirka ah oo kale too qalqaaliga haddii muddada 7 bari oo quraankiisa si fiican uga soo baxo khaladaad waa ka dhacaya khaladaadkiisu uu yaraado wanaag oo dhan uu sameeyo waxay markaa sameynayaan abaalmarin surprise isbuuca dameeto shukulaato dhar wuxuun hadiyada la qaybinaya wixii la awoodo markaa haddii la awoodin habiya mac amaan loo jeediyo ilmaha madaxoo loo salaaxo waa wax weyn. fariid baa tahay shaqo fiican baa qabatay bal fiiriya Soomaaliya khaladaadka aan sameeyno ilmaha khaladka waa ku dilaa laakiin wanaagga marka uu sameeyo kuma amaano. tarbiyad noocaas ma shaqeynayso. tarbiyadu sideedaba waa inay leedahay ciqaab ilmihi la ciqaabayo la ganaaxayo ma aha in jirkiisa la taabanayo iyo abaalmarin labadaasba waa inay wadato. markii sidaa aa samaysaan ilmaha 10 jiray 8 jiray waa ilma hadalka yaqaan waa ilma wax kala garanaya waa la hadlaya isagoo hadal buu wax ku leeyahay dil wax kuma laha. tan kaleeto talada faraha badan oo Soomaalidu samayso hooyo macaanay sidaa iska daa Ilaahay baan ku baryaaya hooyo macaanay sidaan duwa ku ducaynaya oo baryootanka ah ama siyaadada ah oo aad aragteen inay wax tar lahayn lama baahna. sharci baa la rabaa waxba lagu heshiiyey wixii lagu heshiiyey waa in wax ka dhashaan. hadduu wanaagsanaado ilmihi waa in abaalmarin la siiyo hadduu xumaado waa in ganaax jiro. barya ma taalo waa in waalidku uusan baryootamin oo ilmaha tuso inuu isagu yahay liidarka guriga xukuma. hooyadu waa inay taa tusto. arrinkaa horena waa uga hadlay ma aha inay teleefonka qabsato aabaha la hadasho sidii booliska tiraado ilmaha isdagaalaya kaalay iyo la hadal teleefonada u dhiibto. ilmuhu hooyada qadarin xumin bay u tahay wuxuu u malaynayaa inay iyada laftigeedu caruurta ka mid tahay. xaqiraad baa imaanaysa. halkaa koriimada waxyaabaha ka dhacay oo cajiibka waxa ka mid ah caruurteenu marka ay qaan gaaraanin dumarka ma ixtiraamaan. markuu arko waa ka cararayaan dhalinyarada yaryarka ah oo 12 jirada ah hooyo ma arkeen danka ma laha. doorka dumarku iyaga isdhigay waa khalad. waa in hooyadu qawi tahay waxaan adaa dhalay waa inaad tusiso in aad awood leedahay. waxa aad maya tiraahdo waa maya waxa aad ha tirahdana waa ha. ballanta laga soo baxo ilmaha waa in ballanta looga soo baxo. runta waa in loo sheego waa inaan runta laga qarin haba yaraatee kelibeen wax ay tarto ma jirto. nabiga calayhi salaatu wasalaam guriga wuxuu tagay saxaabiyad xadiiska qof aan aqooni ma jirto hooyo ilmo yar xabad timir ay gacanta ku qabatay way u yeertay kaale dadka dhan baa isticmaala Soomaalida saacad buu dhahaya ilmuhu ku soo qabsanaya wuxuu ku yiri hadduu ku yimaado ma siinaysaa haabay tiri yaa rasuulallah saxaabiyad baa wuxuu yiri haddaadan siin ilaahay agtiisa waxa lagu qorayaa inaad kadaaba tahay. imisaynu nagu caruurta bayanu sheegnaa waa xabad timir oo ilmo lagu mihinayo mihim baa la dhahaa waa damin lagu soo qabanayo waayo waxaad baraysaa isagu timirtu soo raadsanaya waa daacad ilmu markuu u yimaado haddaad gacanta dhabsiiso timirtiina ka laabato ama adigu afka gashato ama wixii aad rabtay waa ku siinayaa tiri aadan siin. ilmaha sanadka jiray 2 sano jiray hooyooyinku qaabkaas ay u isticmaalaan. ilaahay agtiisa kadaabad baa lagu qoraya. ilmaha waa in run lagu dhaqo guriga waa in run taalo waa in daacadnimo taalo.
tan kaleetana waalidku koriimada aabuhu waa muhiim, waa inuu ka qayb qaato. waa khalad aabuhu inuu intuu caruurta iska lalalo yiraahdo banaankan ka soo shaqeynaya hooyadan ku deynaya. arrinkaas waa arrin khaldan. jiraanin aabayaal waxyaabaha Soomaaliya cajiibka oo maanta yaal xataa dibadaha yaala waxa kamid ah dugsi quraanka hooyada taagan. waxaan wareystay macallimiinta dugsi quraanada dhiga iskuulada hooyada taagan. aabayaashi mas'uuliyadan akhre waa leedin weydiinaya. marka billaahi calaykum waxaan kula talinayaa inaad guryihiina shir qaban qaabisaan, koriimadana aad bedeshaan, ma garanaysaa ilmihiinana aad si wanaagsan ula dhaqantaan, cadaalad ah, jiljilaaca siyaadada ah, naxariista faraha badanna lama rabo. wax walba oo laga badbadiyo wax wanaagsan ma noqdaanin. kalgacalka hooyo macaana aabe macaanta lama taaban karo, lama hadli karo, ma jirto. sharci baa la rabaa. waa khaldantay indhaha galka uga soo bixinaysa. hooyadu indhaha galka ka soo bixinaysa, way qabanaysaa, meeshii ganaaxay saaraysa. ilmaha 10 jira 12 jira isagu waxa ma kala jeclo 10 daqiiqo meel la istaajiyo, kubadii banaanka, ciyaartii, waxyaabahaas loo diidaya. tan kale aabu waa inuu ogyahay ilmuhu markuu banaanka aado iyo hooyadu meeshu u ciyaartago, ciduu saaxiibka leeyahay, kubadda meeshu ku soo ciyaaro, waxaas oo dhan waa in lala socdo. wixii marka inaga xumaaday waynu hagaajin karaa oo dib u hagaajin karaa, laakiin maxay rabtaa ogow 10 sano wax soo qalloocday bil kuma hagaajin kadib. ugu yaraan waxay qaadanaysaa muddo. laakiin farsamooyinkan aan idin sheegay midda shirku ka mid yahay, ganaaxidu ka mid tahay, la hadalku ka mid yahay. la hadalku waa wax weyn. ilmaha lala hadlo, qaab hadalkaaga wax ka bedesho, qaab dhaqankii wax ka laga bedelo, hadda kadib la isu fiirsanayo, khalad aan la isku eeganayn. ilmuhu isaga wuxuu raadinayaa in abaalmarin la siiyo, inuu wanaagsanaado. ka ugu qaalisan oo 10 jirka marka shirkaas oo kale la fiiriyo wuu fikirayaa, wuxuu ku dadaalayaa inuu istoosiyo. khaladaadka ka dhacay isha yaan xoog loogu qaban, wixii weyn hal lagu qabsado, hal la hadlo iyadoo loo caroon, laakiin codka kor loogu qaadayo. ilmaha marka aad la hadlaysaan hooyadu waa in codka kor u qaadaan, la xoojiyo, sida ganaaxa oo kale marka la saarayo. haddaad mar dambeeto waxaa samayso ganaax baan ku saaraya, mar dambana ma u noqon kartid hortayda waxaa kuma samayn kartid. hadal waxaa la rabaa kulul oo ilmuhu markaba attentionkiisu soo jeesto baa la rabaa, qaybna aan ahayn oo dhawaaq aad dhagaha jeexayso ama maaragtay sida Soomaalida furtuur lama rabo. qaabka noocaas ah insha Allah la isticmaalaya, ilmuhuna way inoo hagaagayaan. marka aynu sidaas samayno baynu ducaysan karnaa oo dhihi karnaa Ilaahay awlaadaha inoo hagaajiyo. laakiin inagu oo caytamayna oo ilmihii dilayna oo xumaan oo dhan wadna, awlaada Ilaahay ha nooga hagaajiyo, awlaada Ilaahay baari ha nooga dhigo, si ma soconayso. waa duco iyaduba istighfaar markaa u baahan. marka hore waa in waalidka wanaagu ka yimaada, waa in caayda joojiyo. ilmahan adaa dhalay, aakhirana waa lagula xisaabtamaya. waa inaad qiyam geliso, waa inaad diin geliso, waa inaad xishoodka barto, daacadnimada barto, runta barto, ballanta barto, hadalka la isdhegeysto barto, qofka aragtidiisa lagu ixtiraamo barto, xorriyad siiso, jirkiisa aadan ku xadgudbin. haddaad intaas guriga ku soo jebiso, isaguna berrito suuqu ku jebinaya. iskuulka dacwadiisu maalin walba kaa dhamaamayso, qayladiisu maalin walba kaa dhamaamayso, maalin walba qof dusha ka fuulaya, ilaa guriga baa dhibaato ka taagan tahay. marka hore guriga aan hagaajino, kadib baynu malcaamadaha quraanka iyo iskuuladu marka ay isbedelayaan aynu soo jeensanaynaa. laakiin hadda heerka aan ku jirro waa heer aad u xun oo laga naxo. intaasaan kusoo gabagabaynayaa. dhammaantiin aad baad u mahadsantihiin. insha Allah waxaan idinka codsanayaa in aad YouTube-ka subscribe dhahdaan, ma garanaysaa aadna share garaysaan oo dadka gaarsiisaan, Facebook waraahatan aad gaarsiisaan. dad badan baa Ilaahay ku anfacaya. adiga hataa haddaan caruur kuu joogin aad dhalinyaro tahay, dir dadka u gudbi, asxaabtaada la wadaag, qaraabadaada la wadaag. ani haddii gurigaagu hagaago, ummad hagaagtaynu noqonaynaa. wabillahi tawfiiq.